Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa mar kale iyo channelka Somali Hashtag. Maantana waxaan idiin hayaa 3 application oo aad u muhiim ah inaad isticmaasho. Barnaamijka koowaad waxaa la yiraahdaa Google Keep. Barnaamijkan wuxuu ka caawinayaa in aad ku kaydsato xogtaada. Tusaale ahaan, in aad ku qorto xusuus qor ama waxa maalintaas aad rabto inaad sameyso ama qoraal ayaad ku kaydsan kartaa. Barnaamijkan wuxuu kaga fiican yahay barnaamijyada kale ee wax lagu qorto. Waxaa loogu talagalay xusuus qorta gaar ahaan. Marka sidaa daraadeed aan gudaha u galno. Barnaamijka marka koowaad aad soo furto sidaan ayuu u egyahay. Waxaad ku dhufanaysaa halkaas ay ku qoran tahay calaamada blasta ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. Sidaas waxaad ku samaysan kartaa qoraal cusub. Halka kore waxaa lagu qoraa ciwaanada, halka dambena waxaad ku qoran kartaa note-kii ama xogtii aad rabtay inaad kaysatid. Sidoo kale barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale. Wuxuu ku xiran yahay Google oo tusaale ahaan Gmail-kaaga haddii aad xasuusato marka telefoonkaaga hadduu ka lumo xogtaadii dhan way ku soo noqonaysaa. Gaar ahaan barnaamijkan ani ahaan aad baan u isticmaalaa oo mar walba telefoonkeyga wuu ku furan yahay. Haddii telefoonka laga xado ama uu ka lumo waad soo ceshan kartaa xogtaadii oo dhan. Sidoo kale ila fiiri tusaale ahaan email halkaas ay ku qoran tahay calaamada tigta. Halkan waxaa loogu talagalay in lagu kaydsado xogta loo yaqaano to-do list ama wax walbo aad rabto in aad qodob u kala goyso. Tusaale ahaan jadwalkaaga maalintaas aad sameynayso ama suuqa aad adeeg ka doonatay oo adeega aad maaragtaane shay walba magaciisa ku qornayso. Kadibna shay walba marka aad gadato ayaad magaciisa tick saaraysaa. Sidoo kale barnaamijkan waxaad xogtaada u kaydsan kartaa qaab sawir ahaan ah oo sawir aad maalin iska soo qaaday ama meel qurux badan oo aad tagtay. Tusaale dalxiis ayaad aaday kadibna sawir ayaad ka soo qaaday. Marka barnaamijkan wuxuu ku siinayaa inaad xogtaada sawir ahaan u kaydsato. Marka sawirkaas soo dooranaysaa kadibna halkan ayaad imaanaysaa. Waxaad ku qoraysaa xogta ama maaragtaane dalxiiskaas waxaad kala soo kulantay iyo waxyaalo la mid ah waxaad ku qoraysaa. Sidoo kale waxaad ka codsan kartaa barnaamijkan inuu ku soo xasuusiyo xogtaada. Si aad arrintaas u sameysid, xogta ama sawirka ayaad riixaysaa. Kadibna calaamada gambaleelka ayaad ku dhufanaysaa. Kadibna halkan ayaad ka dooranaysaa xilliga lagu soo xasuusinayo. Barnaamijka kale aan rabo inaan in la wadaago wuxuu yahay barnaamij aad u muhiim ah xagga noloshaada. Barnaamijkaas wuxuu ka caawinayaa in aad ku tasbiixsato mar walba. Marka barnaamijka aan hor u galno. Barnaamijka marka koowaad aad soo furtid wuxuu u egyahay sida tan. Marka haddii aad rabto inaad tasbiixsato ama aad adkaar akhristo ama wax walba waxaad ka dooranaysaa meesha adkaarta iyo waxaan ay ku qoran yihiin. Marka tusaale ahaan aad ka soo qaadano subxanallahi wa bihamdihi meesha ay ku qoran tahay. Mar walbo aad rabto inaad tasbiixda tirsato ama adkaartaada shaashada telefoonka ayaad taabanaysaa. Sidaasna wuxuu kugu tirinayaa adkaartaada ama tasbiixda. Sidoo kale haddii aad rabto in si iskiisa uu kugu tiriyo waxaad ku dhufataa halka calaamada madow ee ku taalo. Kadibna 3 jeer baad shaashada taabanaysaa. Inta kale asaga ayaa ku tirinayo adiga adkaartan baad akhrisanaysaa kaliya. Haddii aad ka baqayso in ay shaashada ku mashquuliso waxaad isticmaali kartaa shaashada oo madow. Si aad arrintaas u isticmaashana calaamadaas madow ee wareega ah ku dhufo. Kadibna tasbiixdaada waxaad ku tirsanaysaa shaashada oo madow. Kaliya shaashada baad taabanaysaa. Sidaasina waxaad ku tirsanaysaa tasbiixdaada. Application-ka saddexaad waxaa la yiraahdaa magaciisa Wallpaper. Barnaamijkan waxaa ku jiro sawirro badan. Sawirradaasna waxaad saaran kartaa shaashada telefoonkaaga. Sawirradaas oo aad iyo aad u qurux badan runtii. Haddii aad rabtid inaad sawir ka mid ah saaratid, sawirkaas baad dooranaysaa. Kadib waxaad ku dhufanaysaa halkaas ee apply ku qoran tahay. Kadibna intaan mid ayaad ka dooranaysaa. Midka aad rabto aad ku dhufanaysaa. Kadibna okay ayaad dhahaysaa. Sidaasina waxaad ku bedeshay shaashada telefoonkaaga oo aad saaratay shaashad aad iyo aad u qurux badan.